السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group oo aad alaaba ka daawan jirteen warbixinadii ugu dambeeyay iyo xogaha sirdoonka ee caalamka. warbixinteena maanta waxa aynu ku eegaynaa sidee ayay xuruntii nukliyeerka ee Al-Kibar ee ku tiilay gobolka Deir Zor ee Suuriya ay Israa'iil u burburiyeen. inta aynaan u gudagalin warbixintaas iyo faahfaahinteeda fadlan daawade subscribe nagu dhiirigeli oo gambaleel ka furo muuqaalkan like saar una share garay asxaabtaada ku mahadsanid. waxay ahayd 6dii bishii Sebtembar 2007 markii Israa'iil burburisay saldhiggii nukliyeerka Suuriya oo xilligaasi dhismo ku socday. wuxuu ahaa mid tiro yari ka warqabeen iyadoo xitaa aysan la socon shaqaalaha xuruntu ka shaqeynaya hadafka laga leeyahay, halka dawladda Suuriya ay ka ogaayeen in farakoturis oo madaxda sare ka mid ahi. kanaalka tobnaad ee telefishinka Israa'iil ayaa laga sii daayay qaabka ay u heleen xogtaasi kadibna dhulka ku dareen xuruntaasi. Israa'iiliyiinta waxay u ahayd guul basaasnimo tii ugu weyneyd ee ay gaaraan in muddo ah. xogta saldhiggaasina waxay ka heleen qabiil Suuriyaan ah oo lagu magacaabi jiray Ibrahim Cusmaan, madaxna ka ahaa dhamaystirka saldhiggaasi. qabiilka Suuriya Ibrahim Cusmaan wuxuu ahaa nin beegsi u ah muddo 3 sano ahna ay raadkiisa ku joogeen sirdoonka Mossad, iyagoo markii dambe la raacay diyaarad qabiilku ugu aaday dhanka Yurub, wuxuuna ka degay dhismo ku yaala magaalada Vienna ee caasimadda dalka Austria. xilligaasina uu meesha ku sugnaa waxaa ka warhayay tiro yar oo Suuriyaan ah, balse waxaa kor kala socday basaasiin hay'adda Mossad ka tirsan oo diyaaradda la soo raacay. iyadoo waqti duhura ay tahay ayuu qabiil Ibrahim ka baxay qolka uu ka deganaa dhismo ku yaal magaalada Vienna una jihaystay dhanka suuqa. markii uu qolkiisa wax yar ka sii maqan yahayna waxaa soo galay 2 nin oo sirdoonka Mossad ah oo watay furayaal been ama la soo foojireeyay. waxayna galeen qolkiisii oo uu ku tagay kombiyuutarkiisa gacanta, waxayna ka shubteen wixii macluumaad ama xog kale la xiriira ee ku jiray, iyagoo ku xawilay xarunta sirdoonka ee Tel Aviv. baaritaankooduna wuxuu ugu dhamaaday jawi deganaani ku jirto ay isaga ilaalinayeen in qabiilku dareemo sirihiisa laga jabsaday. xogtii laga soo diray dhanka magaalada Vienna ee lagu xawilay dhanka Tel Aviv ayaa lagu bilaabay baaritaan degdeg ah. Israa'iiliyiintu waqtigaa waxay sheegeen inay gaareen guul basaasnimo tii ugu weyneyd oo amniga qarankooda muhiim gaar ah u lahayd. muuqaaladii laga helay xogtaasi ayaa waxaa ka mid ah xurunta oo gudaha iyo dibaddaba laga sawray. falanqeyr dheer kadibna waxaa la isla gartay in Suuriya muddo yar kadib sheegan lahayd awood nukliyeer ah, iyagoo waqti laga baran degayo iyo madaxweynaha Mossad kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha Yahuudda Ehud Olmert iyo madaxii hoggaanka ciidamada, isagoo la wadaagay macluumaadkiisa ku saabsan xuruntaasi. talooyin la siiyay kadib wuxuu amray ra'iisul wasaare Ehud in la duqeeyo 15 ka mid ah diyaaradaha dagaalka Israa'iil ee noocoodu kala ah Ram Fighters iyo Zuffa Fighters iyo Anti-Craft oo xambaarsan gantaalada aadka wax u burburiya ayaa qaaday weerarkoodii, iyagoo digniin siiyay Mareykanka oo ah saaxiibka kaliya ay ku tashato. waxayna heleen caawimaad muhiim ah oo dhinaca Ameerikaanka oo ahayd in shucaac lagu furo nidaamka difaaca hawada ee ciidanka cirka Suuriya si looga gaangsato in gantaaladu gaaraan diyaaradaha oo hadafkooda uusan miro dhalin. waxaana suuragal noqotay in diyaaraduhu halka warshadu tiilay gaaraan maadaama ay haysteen maabka qariidada oo buuxda duqeyna lala beegsaday oo dhulka lala simay. halkaa waxaa ku dhintay 13 ka mid ah shaqaalihii xurunta oo sakeeyo ee jaaniba lahaa. 10 saynisyahan oo ka mid ah waxay u dhasheen ama ahaayeen Kuuriyada Waqooyi. sawirka xurunta ka hor siday ahayd kadib markay diyaaraduhu burburiyeen waa sida aad halkaasi ka dheehateen. daawadayaal waxa aad warbixintaasi kala socoteen boggeena YouTube ee Brothers Media Group. intaan warbixintan mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas nabadgelyo.